waxaa xalay munaasabad lagu soo bandhigay buuggii Danjire ee uu qoray Ambassador Maxamed Cali America lagu dhigay South London. Munaasabadaasi oo marti sharaf badan ka soo qayb galeen oo ay ka mid ahaayeen siyaasiyiin, waxgarad, fanaaniin iyo qaybo kala duwan ee bulshada. Haddaba halkaasi waxa ay ka yiraahdeen ahmiyada uu leeyahay buuggani Danjire isla markaasna xambaarsan waxqabad. haddaba mas'uuliyiintaasi waxa ay yiraahdeen waxa Soomaaliya ka taagan inuu ambassadorku u taagnaa dib u dhisidda dawlad qurxan oo Soomaaliyeed oo dadka Soomaaliyeed ay maanta ku farxaan. waxaan rabaa inaan idin sheego Soomaaliya maanta meesha ay taagan tahay iskama aysan soo istaagin. waxa u dhabar adeegay oo 24 hours u taagnaa dad uu ka mid yahay ambassadorka maadaama uu ahay ambassadorka uu adeegaha shacbiga Soomaaliyeed uu adinka idin adeegayay 20 sano soo socoto uu dhiiggiisa iyo dhimirkiisa geliyay. waxaan idinka codsanayaa si walaaltinimo ah, Soomaalinimo ah, insaannimo ah inaa ambassadorku istaagtaan oo u saxbisaan. hal mar aan wada istaagno aan u saxbina ambassadorka wuxuu noo shaqeynaya 20 sano oo soo dhaafay. isla kadib waxaan mahadcelinayaa guddigii soo qaban qaabay xafladan quruxda badan leh ee lagu daafuray buugga uu noo soo qoray ambassadorkeena caanka ah Maxamed Cali America. intaas kadib waxaan rabaa inaan mahadceliyo fanaaniin caan ah oo aad wada garanaysaan oo caawa halkan aan isla soo galnay oo isla soo raacnay oo ah Nimco Yaasin Caraale iyo Nafaxaad wada taqaanaan oo markii aan u sheegay meeshaas inaan aadi doono igu yiri ninkaas odiga ah waa nin caan ah ummadda ay jeceshahay meel walba laga soo dhaweeyo. Abdiraxmaan waxaan ballan qaadaynaa inaan kaa harin oo aan ku raacno kana qayb qaadano cabladiisa. Nimco iyo Nafaxaad waad mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad insha Allah. asana waxaan ku aqaanaa inuu yahay nin guda abaalka loo galo. soo dhiibtay doortadii lagu soo dhaweyn lahaa ambassador Maxamed Cali America insha Allah halkaa la keeni doonaa. haddii aanu markaa barnaamijka anu nimid aan usoo laabto si aad la socotiin waxaad maqli jirteen war magaalo warqad ayuu ku yeelaa. haddii aad rabtaa markaa war magaalo buuggan ayuu ku yeelaa cawl halkaan noo yeela. haddii aad rabtaan inaad ogaataan micnaha ay leedahay ama uu leeyahay sawirka iyo cafinta bini aadamka la cafiyo waxaad ka helaysaa buuggan. jooggeeda ambassador ahaa waa ayada laga sheekeeyey wax badan inuu joogay Kenya oo ah meel adag ama dacwo ha ahaaday. tan labaad inaan buuggan gato oo xoogaa yaroo warar layga siiyey inaan barto inaan gato oo akhristo. Abdiraxmaan maxamed abdidoon galabta meel wada joognay yaa warkaan ii sheegay in cawada inta lagu qabanayo. marka xoogaa yaraa inta la fadhiyo danjiraha waxay ii sheegaa erayga la yidhaha danjire aan isticmaalaa cawadoo dhan waxaa maqlaayay ambassadore safiir asaguna buuggiisa danjirooba ku qoray ma aqaan waxa loo isticmaal waayo eraygaas. waxaan kaloo la yaabay arrin sira isagaan hoos ugu sheegay. waxaan iri maxamed ma 62 yaa dhalatay هاو يريد لبري أنا بدور سومر لو شغينا أو معنا ولا يا بي أنت تدريناه أنتو إنه بوزيشنه جاري أو أمبارتور نقولي وحبرتي الدنيا وسومري وهذا البيع. مرة بديك يا قلب بعد عادي وحيك عبدي الماعة Let me tell you guys my definition of power.
When Allah blessed you to be in a good place in government, you mustn't push everyone away because you are scared if they take your position. My friend, stop acting that like you own the chair. Allah put you there to test you, to see what you will do with the power, to bring up people or kick them down. Ladies and gentlemen, power is limited, but love isn't. Guess what Ambassador has? He toured Somalia. Every town or city, people welcomed him with love. I'm very happy that he wrote his book, because now the next generation will know who he is in detail, and we can show off by saying we know him. On that note, I want to wish Ambassador a long life, inshallah, and I want people to get his book, inshallah, because we are helping a good cause. Assalamu alaikum. والله أنا أقول ولي وحن يا رب وسطاي وكلمات الناس اللي شفت الغنى الترس كان صوتي وعلى كلمة الوالي وعلين وحفاز اللي كان بيدكيت وعلين وحفرت ودياسا ووعد فرح ما شاء الله شكلك تاكل عاود قال دونا دي بلاش الوقي اسمي ثاني هذا عاود شمت إذا قال waxaan kaloo hambalyeelayaa inankeena fanaanada ah ee maanta adduunkooda macaalmaday nimca habi aadan u taageera sacabkaa wadna waa magac inagu soo kordhay waa sharaf inoo soo kordhay waa wanaag noo soo kordhay inaan fanaaniinna inta xigbanamay ogeynaya oo ka tamasusaysee sacabkaa loo tumadee maasha allah iyada markaa layna horu soco waxaa sugnaaba waa dhiijiiga sanadka waa macalow waa aabbaha fanka فنان أنا عيال فرحة
mahadsan yahay intaa kadib waxaan rabaa laba kelmad in aniga idin dhaho oo baraarujin ah sheekadana aan dib u yaro dhigan insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan idinku tartasiiyo ama aan ku dhiirageliyo ambaasadorka iyo qof kasta oo qoraa ah in wax la qoro muhiimadda ay u leedahay islaamka inta oona soo baxay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam ummadda annaga aan ka midnahay waxay ahaayeen ummad ummiyiin ah waxna ma akri jirin waxna ma qori jirin saasay ummadihii naga horreeyey oo yahuudda u liidi jireen markaasay waxay dhihi jireen korkeenna ma ahaanin dad ummiyiina inaan wax u sameyn ixsaan ama aan utaqaan most Europe and North America dadka dhisay ma aha kuwii inay jaamacada ka soo baxday waxay ahaayeen aayadda quraanka siday dhahaysa akhri waxay ka faa'iideysteen inay akhriyaan waxay ka faa'iideysteen nabi aadam inuu malaa'igta kaga adkaado information anagana waxaan maanta horumar ku gaari karnaa ama isku dhegaysan karnaa markaan noqono ummad wax akhriya marka waxaan mahad gooni u jeedinayaa safiirkani iyo dadka xafladan sidaan u qurxoon oo soo qaban qabay dhammaantiin waxaan leeyahay mahad haniga gaarta ayaa leeyahay barakaatu dhammaantiin waan islaamay sharaf bay ii tahay inaan caawa ka soo qayb galo xafladan aadka muhiimku ah oo lagu soo bandhigayo buugga uu qoray danjiraha runtii hal kelmad un baan ka oranayaa arrinta dib u heshiisiinta waxa weeye saa u socotaan cunug uu dhalay danjiraha ayaa la dilay horaantii sagaashamaadkii qofkii dilay ayaa u yimid danjiraha oo ka codsaday cafis ka codsaday arrinta marka cafinta waxa weeye dad badan baa ku barakoobay dowlado badan baa ku dhismay waa la socotaan South Africa Truth and Reconciliation waa la isbaabaashay waa la isdhibaateeyey haddana waxa weeye way isku yimaadeen waa la tashaday waa la iscafiyey sidoo kale Sierra Leone iyo Rwanda waxay samaysatay waxa la yidhahdaa cadaalad aan ciqaab lahayn kuwii isdilay ee isdhibaateeyey iyo kuwii wax dilay ayaa iska hor yimid oo iska soo hor fariisiyey xeroosaad iyo xajajab bay samaysteen waa la iscafiyey marka arrinta danjiraha uu tusaalaha u yahay cafinta ayaa waxaan u baahannahay taan Soomaali nahay inaan ka faa'iideysano tusaalahaas ama aan la qaybsanayaa qadarintan caawa halkan lagu hayo ee ku salaysan buuggaasi qarada weyn qoraalku waxaa la yidhaahdaa qadari qofkaaga quman si aad adigu qiimo u yeelato qofkeena quman ee ina horseedka inoo ah ama wanaagga ina faraya waxaa mar walba hagaagsan inaynu ku dayano keliya ma ahan ammaanteennu inaysan halkaan caawa ay ku ekaato laakiin inay noqoto ammaan aanu dhexda ku wada xidhanno ambaasadorka iyo asaagiina aan guntiga ugu soo xidhno si uu u noqdo ama uu beeqaamiyo ujeeddada halkaan u yimid hadalkayga waxaan kusoo gunaanadayaa bulshadu wax isuguma aha ama uma wada dhalan sida ay jaalka u tahay ama meel wada joogto bulshadu waxay wax u wada tahay ama u wada dhalatay sida ay dareenka u wadaagto waxaan jeclahay bulshada Soomaaliyeed ama dadka Soomaaliyahanka sida walaalkay sheegay waxaa ka dhaxeeya dareen dheeh dhalasho iyo dhaar ayaa ka dhaxaysa laakiin maanta waxaan moodaa dadkii Soomaaliyeed inuu ku dhacay wax loo yaqaano isir walaac ama identity crisis ama waxaa ku dhacay dhafoorkor markaa qof walba Soomaaliyeed uu islaayahay uu isdoondoonayaa kuma tahay xageed ka timid ayaa ma tahay qolo ma tahay gobolkeed ka soo jeedaa dhammaan waan isdoondoonaynaa laantooda ambaasadorka inaad siiseen oo aad soo dhaweyseen sharaf weyn ay ii tahay in 2 sano kadib aan arko Maxamed Cali Nuur Americo waxaan ka mid ahay dadka professoriska ee waxa uu guday waxa uu bilaabo garan kara waa dareemi kartaa Nairobi inta ambaasadorka ahaa anigu waan ku noolaa wariyaan ka ahaa wariye qaxooti oo xamar ka soo cararay shabaab soo bursaday magaaladaas ku rafaadsan waa dareemi kartaa xaaladii ku noolyihiin hal arrin keliya rabaa inaan ku daro in buug la qoro muhiimadda ay leedahay waad la socotaan adduunka hormaray gaar ahaan ambaasadorka iyo dadka Soomaaliyeed qaybo ka mid ah meelaha ay ka soo jeedaan waxaa jira dad waxgal ah oo aan aad wax loogu qorin
marka waxaan rajeynayaa in ambasadorku uu furo u noqdo dadka iyagoo nool in laga faa'iidaysto oo wax laga qoro jiilalkii hore haddii ay dayaceen fursaddaasna ambasadorka inuu furo u noqdo waa hambaleynaynaa. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مفرح سمع هنا كسر قيد بالكل كان فنتي عاوة وجدت كوجو يوم يدوح هذا باستور كنا قلب استعجوا المعروف كل الكيسة مرة بينا كلنا هذا لكن صاحب المدرسة كسر كوم لبش شخصية ولاية هاي أيام عليها أوجا هاي باستور أمريكا لبش شخصية الصومال وكوية تاي وعبد الكوبات وأنا عفس بدر وعن العطار قبيل وصومالي ذاك يرادين يسودك كاسات كميلا وحنا من سنة هاي أمريكا هذه وما صومالي بدحوينك عنها قفنا لبحنا قفنا لبدباتية وأنا نقصت أقامه نذاك سامحة وعن العذر قبيل وعن العطار قبيل أصور هيك النوال أو كسرعة صومالي كيبل بدنا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام دلمان وعليه نحطه وحان أقول معنا باسطورك شخصي أو صومالي أو كبسي دولوين أو صومالي أو كلية الوقراني disability أو مستقل هذا اللعب أكثر تفك لحين وقت كبسي هذا بقول مهدنا يعني مقصي عن أو كل وحن إلا هاي ولا له يوم الشيطان هذا ما تنتين وحن تسكنا يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام دمانتي هذا يعني هو أحسن هاي وقتي وغالي وصومري دنجرها كنتي أنا نفتي قدرت قبل سفر كده وصوم الأيام كبيرة هاي هي أيام وحصوص عفس كأوروبا هنتا ومن الصومالية كل أنا ذاك أو كتبنا كارها قبلها هذه أنا قبلها لها كنتي على دير نفتي كده ممكن ساعتنا أيام جينا أيام مرة مرة أنا أمهد عليا عاوة إن لك إيمادنا يقول شرفي ويلكاس وهذا كواي عبد عمر الله سبحانه. هذا الكيس عداية تغير الجلية وغير مسيحي أبيس صاحبه الله يحرسه وحن كانوا هم عليا قبل غيابش حفظة لكن كوسا فنوع له شيء كرو وماسيين وحن هم عليا فلانين تقرن وكان عاوة يقال يمين يقول شرفي ولا شيء نمعي ياسين كورنتو نفحات عبد النور جاز معلو رابطلي أبو محمد يحيى أول لجن معلو ما كان وماسي هاي ومعك لو ما دعينا وزير كاني روح وكي دحمان وما دعينا وراجع محمد ترونجي انت كنتنا انا عاشو يا عاشو وعكروا وما دعينا نراكي قوي ويقول بوس عاطف ونوغي بدا سويدن بوس عاطف مركان جو صوماليا وابوك دافوراي انا جوغا تركيا اسطنبول أنا سوى محمد حقول هاي وعن هذا يا يوروب بوغان دافورا وحنا وحكي بلاد سويدن اسطنبول محل ستوكهولم وحنا ذاك بلادي بوغو حيري مدفع تجيها مركا عشان الله وهذا وش عاوة بوغا يوروب إلى أمريكا إلى كندا عاوة جوجل لندن وبركزيها ما شاء الله الله أكبر أنت أتكلم حتى أقول بوغا صار تاني محل دنجري بوغا waxay u qaadatay 3 sano ayaan qoray buugga markaan dhameeyay waan hadinaya magaca buugga aan u bixiyo magacaas buugga danjire waxaa isiyey ama mataqaanaa aan ka qaatay nin heeladan ah oo saaxiibkii ah la dhaho Nuuruddin Diiriye asna waa u mahadcelinayaa magaca buugga oo isiyey markii aniga shaqada safaaradda aan ka tagay 2015 وأوقتين وحمري وأنصمر ودن قديسة شغال دير وأنكسو مري وأقوم عدل شغال كي نودا سوماليا وأنكبل هاوي حمر اسماعي أنتقي وأنتقي بايدو وأنتقي قروي
ilaa iyo qardho boosaaso gaalkacyo ilaa iyo matabana imid xamar balcad jowhar warshiq baraawe hargeysa berbera kadibna aan dibadda soo maray ayaa waxaan go'aansaday inaan hay-addan aan sameeyey 2008 oo dhoylida Yasmin Foundation inaan waqtiga geliyo oo aan xoog saaro duleelada hay-adda Yasmin Foundation si la daala sheegay magaceeda waa gabadha dhalay oo dilay 1992 buuga ku qoran tahay sababta loo dilay iyo cafiskii la sheegay wixii dhaxmar ninkii mataqaanaa ka midka dadka dilay oo aan cafiyey hay-adda waxay ka shaqaysaa Soomaaliya gudaheeda waxaan qodnaa ceelal waxaan mataqaanaa dhisnaa iskuulaad waxaan si gaar ah aan u caawinaa caruurta qaba baahida gaarka oo ah kuwa wax arki karin wax maqli karin mataqaanaa soo sheega daayada boos caatana Soomaaliya oo ogtihiin reerka markay leeyihiin caruur lixii laxaad leh iyo kuwo kale oo aan lahayn maadaama Soomaaliya ay lahayn iskuulaad fara badan oo arday wax barta waxaa la caruurta kala haadaa iskuulka kuwa kale waxay joogaan guriga waxaan rabaa inaan kaga sheekeeyo sheeko yar oo buuggan aan ku sheegay 2 sano 3 sano ka hor ayaa waxay la soo xiriiray wiil dhalinyaro ah oo la yidhaahdo Cabdiraxmaan wiilkaas wuxuu dhahday inaan ku arkaan rabaa maadaama hay-addaas Yasmin Foundation aan leedihiin waxaan rabaa inaan kala hadlo arrin anaga ii gaara oo kaalmaadi ka rabaa wiilkii waa la kulmay wuxuu ii sheegay inuu ku jiro sanadka 3aad ee jaamacadda wuxuu ii sheegay in ay dhasheen wiil iyo gabar aan wax maqli karin wuxuu dhahay markastuma galabtii iskuulka aan ka imaado maadaama ilmaha aan iskuul lahayn ay dhigtaan oo mataqaanaa dadka aan wax maqli karin waqtigiisa ay qaadan jireen waxay rabaan inay wax bartaan isagana ma yaqaano sign language wuxuu dhahay waxaan galay YouTube-ka waxaan bartay sign language asaas baray kadib meel kadib markuu bartay ayuu wuxuu bilaabay walaashiis iyo walaalkiis in gurigooda uu ku baro mataqaanaa wax ku baro wuxuu yidhi maalmo kadib walaashiis iyo walaalkiis oo aan wax maqli karin dabcan waxay leeyihiin saaxiibo kale iyagoo kala ah way u sheegeen wuxuu dhahay guriga 2 sano gudahooda 25 cunug ayaa timayo gabal kasta oo raba inay wax bartaan wuxuu dhahay wiilkaas wuxuu jiraa 21 sano wuxuu raadiyey dad kale oo yaqaano sign language Madiina ayuu ku kireeyay gurigu kireeyay wuxuu raadiyey kuraas iyo miisas arday wax lagu baro wuxuu soo helay 2 macalin oo yaqaano sign language guriga ayuu kireeyay guriga kiradiisa bishii wuxuu dhahay waa $200 caawa ku cashan karna umana wuxuu ii sheegay inuu hadda 6 bilood bixinayay lacagta soo arurinayay laakiin uuna bixin karin wuxuu kaloo ii sheegay in iskuulka ay dhigtaan arday gaarayso 65 $200 ayuu guriga lagu kireeyaa macallimiinta wuxuu dhahay qaar waa volunteer qaarna wuxuu dhahay waxbaa la siiyay alxamdulillah faamiga aha ilaa haddeertan iskuulka hay-adda Yasmin Foundation ayaa gacan siisay hadday uma mahad celinaya mataqaanaa MC-ga xoshay uu mahadsan yahay siduu fiican u daadahinayay mataqaanaa daadinayay barnaamijka wuxuu sheegay in lacagta laga helo buugga aan go'aansaday inaan hay-adda ugu deeqo runtiis waaye buugga qoraayo la daabacayo lacag ku baxayso alxamdulillah go-aankaas anaa gaaray hadda markii koowaad aan ku daafurnay muqdisho waxaa kaloo ilaah mahadiis ah meel kasta aan tago waan buugga soo bandhigayo magaalooyinka waaweyn 2 habeen ayaan ku daafuraynay
dadkana waa u mahadcelinaa idinkaa ka mid tihiin taageeraday muujiyeen lacagihii hadda aan aruurinay meelahaan soo maraayay wiilkaas cabdiraxmaan ee hadda gacan iga siiyey in insha allah tacaala maalmaha soo socdo iskuul kale oo ilmaha aan wax maqli karin laga furo kaaraan muqdisho insha allah marka insha allah tacaala waxaan rajeynaynaa hadduu leedahay inaan meelo kalena aan geyno iskuulaad ka furno especially anaga waxaan xoogga saaraynaa inkastoo ay dowladda iyo wasaaradda mataqaana waxbarashada in xoog la saaro laakiin soomaaliya muqdisho iyo gobollada kale waxaan kusoo arkay in dad mataqaana aan u mahadcelinayo oo private ah ay ayagiis baabuleen ee iskuulaad hadda yar la tirin karo ay ka fureen gudaha soomaaliya oo ilmahaas wax lagu baro anaga marka insha allah tacaala waxaan xoog saari doonaa inaan arrintaas xoojino oo ilmahaas mataqaana aan gacan siino ay la mid noqdaan ilmaha ay kale oo lix lixaad qaba insha allah buugga waxaan ugu hibeeyey markaad furtaan arkaysiin aabbe iyo hooyaday allah u naxariisto oo ah waa aniga aan dhaho waa my heroes waa dadka aan ku daydo dadka aan mataqaana ma gaari karo laakiin I will do my best inaan waxay sameynayeen aan u dhawaado mataqaana waxay qabteen hooyaday waxaa la dhahaa muddo gacal waxay dhimatay anoo jiro 9 sano laakiin waxaa xasuustaa hooyaday waxaa lagu yaqaanay qofkii yaqaano oo xaafaddeena deganaa garanayo qof waxay ahayd aad u naxariis badan dadka ayay caawin jirtay xaafaddeena markaan joogno aan yaraa waxaa xasuustaa markastoo aan wax cunayno ama qadada ama cashada waxay dhihi jirtay koogii waa inaad dadka masaakiinta ah u geysaa cunto shiina waa xasuustaa hooyaday waxay kale ahayd aniga ii tahay qofka adduunka ugu qurux badan aabey allah naxariisto isagana wuxuu ahaa qof aad noogu adkeyn jiray in wax barno aabey asoo yar ayuu baadiye ka yimid wuxuu buuga ku qoray uu sheekeeyey wuxuu ahaan jiray ciyaal dambil wuxuu waxbarashada ka bilaabay asoo weyn wuxuu dhigin jiray iskoolaadka xamar la dhihi jiray seeraale habeenkii la barto wax la barto annaga wuxuu dhihi jiray nasiba u yeelateen inaad iskuul aadiin weliba ku dhigtaan lacag la-aan wuxuuna dhihi jiray waa inay naqataan number 1 labo saddex xitaa maaha ana waxaa dhihi jiray iskuulka saqaawdiin loo dhihi jiray maxaa la Philippine waxaa xasuustaa mar imtixaanka aan galay kaalin saddexaad guriga imaaday anoo faraxsan hadda maanta waxaa lagu siinaa mataqaanaa wax fiican iyo lacag iyo guri waxaan dhan lagu iibinaa waxaan dhahay abo imtixaankii waxaan kaalin saddexaad koowi wuxuu dhahay wax fiican samaysay waa uu ii hambaliyey laakiin wuxuu dhahay qofka labaad magaciis qofka saddexaad magaciis ardayga saddexaad amin ardayga labaad iyo ardayga koowaad waa u sheegay wuxuu dhahay waa saaxiibada isku mid aad tihiin sanadka dambe waa inaad iga bedeshaa ana qataa kow dhiirigelin ay ka ahayd in waxbarashada aad loogu adkaysto aniga anoo yar aada maraykan aaday jiro 18 sano waxaa ku soo bartay jaamacadda markaa dhameeyey waxyaabaha aabbe igu dartaan waxaa ka mid ahayd uu yidhi waa inaad soo laabataa waddankaaga kusoo laabo wixii aad soo baratay waddankaaga waa inaad kaaga faa'iidaystaan oo aad mataqaana kusoo celisaa alxamdulilah talooyinka waalidkay alla naxariisto badankooda waa qaatay waana samayn doonaa marka waxaan rabaa inaan war kusoo koobo waxaan idin mahadcelinayaa taageeradiina iibshada buuggan waa sharafteen allah idin sharfo waa mahadsantihiin